daawadayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu si qoto dheer ugu eegayno taariikh nololeedka murashax Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan Magaalo hayaankiisii nololeed soo saaristii jiilalka dahabiga ahaa taageeradii iyo baritaarkii dhalinyarta badan uu ku soo saaray oo ay ku laran tahay dhiirigelintii tilmaamihii iyo talooyinkii wanaagsanaa ee uu ku soo caanbaxay iyo weliba geedigiisii dheeraa ee hayaankiisa waxbarasho ilaa laga soo gaadhayo wakhtigan hadda ah oo uu ka mid yahay shakhsiyaadka magaca leh ee ku loolamaya doorashada fooda inagu soo haysa gaar ahaana golaha deegaanka degmada Berbera waxaana barnaamijkan ka qayb qaadan doona suxufiyiin doora daawasho wanaagsan hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan Magaalo oo loo yaqaano Mustafa Teacher waxa uu ku dhashay magaalada Burco dabayaaqadii 80-maadkii waxa uu waxbarashadiisa malcamad quraanka ilaa fasalka koowaad ee dugsiga ku soo qaatay magaalada Berbera iyagoo dhamaadkii 9-maadkiina u guuray magaalada Burco halkaasoo hayaankiisii waxbarasho ka sii watay ilaa uu ka gaadhay heerka shahaadada labaad ee waxbarashada sare ee jaamacadda ee loo yaqaano masterta sanadkii 2008 ayuu Mustafa Cismaan Magaalo ku biiray warbaahinta isagoo aad u jeclaa wariyeynimada waxaana uu noqday saxufi ka howlgala qaar ka mid ah shabakadaha wararka waxaana uu gudbay TV-yada muddo ku siman 10 sano ayuu ku jiray saxada saxaafadda waxaana uu noqday wariye caan oo bilado dhowr ah ku qaatay shaqooyinka wariyaasha kale kaga duwanaa oo bulshadiisa uga faa'iideeyay mihnadiisa oo ay ka mid ahayd in barnaamijyo caawimo uu ka sameyn jiray dadka xanuunsanaya danyarta iyo dadka jilicsan iyadoo barnaamijyadaasi uga faa'iideeyay qoysas badan waxaanu saboolnimo iyo duruufo kale iskugu darsameen iskuulka waxaa furay oo iska kaashaday aqoon-yahano dhalinyaro ah oo dalka wax ku bartay qaarkoodna dibadda ay wax ku soo barteen sababaha ugu muhiimsan ee loo aasaasayna waxay ahaayeen inay wax ka bedelaan qaabka waxbarasho ee dugsiyada primariga ama hoose dhexe ee gobolka Togdheer. Mustafa Cismaan Magaalo waxa uu Burco ka aasaasay dugsi waxbarasho lagu baran jiray culumta kombiyuutarka saxaafadda iyo luqadaha sidoo kalena waxa uu ka mid yahay hadda aasaasayashii iyo mulkiilayaashii dugsi ka mid ah dugsiyada ugu caasan magaalada Burco waxa kale oo ka mid ahaa dhalinyaradii fikirka akhriska iyo qoraalka ka bilowday Burco iyadoo ka mid noqday hormuudkii naadiga akhriska iyo qoraalka ee Alkaraan oo maktabadii ugu horeysay publika ka hirgeliyay dalka gaar ahaan magaalada Burco wuxuu sidoo kale hormuud ka ahaa ururada bulshada ee magaalada iyo guud ahaanba dalka arrimo badan oo iska wax u qabsa oo ay ka fuliyeen sida wacyigelinta dhalinyarada dheeraynta magaalada iyo ololayaasha nadaafadda iyo gurmadka dadka danyarta Mustafa Cismaan Magaalo waxa uu arrimaha bulshada bahda waxbarashada ganacsiga iyo warbaahinta ka soo qabtay xilal u sareeya sida gudoomiyihii u horeeyay ee dalada isku xidhka dhalinyarada Soomaaliland ee Sayna gudoomiyihii u horeeyay ee wadajir iyo waxqabad ee gobolka Togdheer gudoomiyihii naadiga akhriska iyo qoraalka ee Alkaraan gudoomiyihii dhalinyaradii gurmad walaalnimo agaasimihii bulsha TV ee Burco mulkiilihii iskuulkii TITC afayeenka shirweynihii qaran ee dhalinyarada Soomaaliland 2015 madaxii maamulka iyo lacagta ee wasaaradda warfaafinta ee gobolka Togdheer qasmajigii shirkadda Dahabshiil Group gudoomiyaha warbaahinta afka shacabka gudoomiyaha guud ee shirkadda duulimaadyada iyo fiisayaasha ee Magaalo Travel iyo xilal kale oo aad u badan oo aan halkan lagu soo koobi karin Mustafa Cismaan Magaalo waa dhiirigeliye ka shaqeeya arrimaha bulshada si gaar ah ugu suntan arrimaha dhalinyarada warbaahinta samafalka waana aqoon-yahan mihnadiisa aqoontiisa iyo awoodiisa dhalinyaranimo
uga faa'iideeyay bulshada sidoo kalena waa aftahan codkar ah oo runta aan la gaban isagoo goob kasta oo uu tago laga jeclaado taasoo ku kasbaday shaqo wanaag dadaal karti iyo dabeecad wacan waxaanu ka mid yahay dhalinyarada farakutiriska ah ee hibada hogaamineed leh ee qarankeenu u baahan yahay inuu ka faa'iideysto oo lagu tijaabiyo xilalka sare ee bulshada Soomaaliland loogu adeego gacmo furan iyo kalgacayl iyo magaranaysa farxad baan Mustafa ku soo dhaweynayna Mustafa waa nin aqoonyahana bulshadiisa wax badan taray oo arrimaha bulshada aad uga shaqeeyay marka waxaan Mustafa ku leenahay ku soo dhaw dalkaagii iyo dadkaagii oo ku jecel oo ku soo dhaweynaya Mustafa guud ahaanba waa nin ku qaaliya dhalinyarada Soomaaliland iyo bahda saxaafadaba iyo bahda qoraayada amaba magaranaysa rugaha iyo maktabadaha Mustafa si weyn baan ugu soo dhaweynaa magaalada Berbera gaar ahaan anigoo ku hadlaya magaca saxaafadda gobolka Saaxil si weyn baan u soo dhaweynaa Mustafa waxaan leenahay door wanaagsan ay dhalinyarada ugu jirta ku soo dhawow magaalada Berbera iyo Burco iyo Hargeysaba kulli odagu musharaxnimada oo saadaalinaya waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaan dhalinyaradu kala hadhin doorkan maanta antanaan aaminsanahay oo aan qabaa inuu noqonayo haddii uu alla soo saaro xildhibaanada ugu wanaagsan guud ahaanba Soomaaliland Mustafa mar labaad iyo mar saddexaadba waan kugu soo dhaweynaa magaalada Berbera baahan yahay oo gobolka iyo dalku way ku baahan yihiin jagada ay soo toogtay xildhibaannimadan ah oo kugu soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa inaad ku guuleysato kana midho dhaliso yadiile iyo rajo cusubna aad u abuurto dhalinyarada inta soo dhaweyntiisa warbaahinta kaliya kama mid aha ama kama qayb qaadanayso laakiin waa mid ay ka qayb qaadanayso guud ahaanba hal doorka dhalinyarada gobolka Togdheer Mustafa wuxuu ka mid yahay guud ahaan dhalinyarada halmar doorsiga aan ku tilmaano ama halmar doorsiga u ah qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland waa murashax dhalinyara oo dhalinyarada reer Soomaaliland ama dhalinyarada Togdheer iyo dhalinyarada Saaxilba ay u soo xuleen inuu u tartamo jagada golaha deegaanka ee degmada Berbera insha Allah taala waliba waxaan la doonaynaa Mustafa inuu noqdo maayirka degmada Berbera insha Allah taala waliba Mustafa mid baan ka codsanayaa dawladda horumaray ayuu research ku soo sameeyay isagaana inooga sheekeyn doona qaabka ay u shaqeeyaan iyo nidaamka ay u hawlgalaan iyo qaabka adeegyada kala duwan ee bulshada u hayaan ee ugu fudeydiyaan insha Allah taala waxaan rajaynayaa Mustafa markuu ku guuleysto xilka xildhibaannimo markuu ku guuleysto xilka maayirnimo inuu dabaqi doono noqon doono maayirkii ugu horeeyay ee Soomaaliland caalamka gaarsiiyay sidii weeye ma ahayn in lagu soo dhaweeyo martina kuma aha haddana annaka ayaa jeclaysanay inaan ku soo dhaweyno Mustafa Cismaan waxaana dareemaysan sida ugu weyn yahay quluubaha iyo shacbiyada uu ka haysto dhalinyarada gobolka Maali qiimo leh waa dhalinyaradii gobolka Togdheer kuwa soo saartay iyo kuwii kale ee baada saxaafadda iyo qaybihi kala duwan ee bulshada oo maanta si wada jira kugu soo dhaweynaya gobolkaaga Togdheer hawlihii dhalinyarada bulshada shaqadii dahabshiil shaqooyinkii kale wixii dhow iskaga tagay siyaasadda ugu yara jeestay waxaan filayaa sidoo active ka ugu ahaa hawlaha dhalinyarada inuu active u noqon doono xagga hawsha uu maanta damacsan yahay hadduu meeyelka noqdo Berbera inuu ka dhex muuqan doono waayo hawlihii social-ka aan ku wada jirnay Mustafa tiraba waxaa la guddoonsiiyey ku dhawaad 10 waxaan yaraynaa abaalmarinta ama quraacad ha noqoto ama shahaado sharaf yar noqotay Mustafa Cismaan magaalada wanaaga ummadda u hayo ayaa iskaaga baray kuna saaxiibnay macna ku noqonay marka inuu dadaaladiisii faraha badnaa uu waday ku daray tana anu waxaan qabaa inuu mudan yahay loo bahan noqo Mustafa Cismaan Magaalo waa aabale 3 caruur ah hal wiil iyo 2 gabdhood Mustafa waxa uu leeyahay khibrad shaqo iyo mid maamul oo ku dhisan muddo ka badan 12 sano waxaanu ka soo shaqeeyay muddadaasi ka badan 12 sano shaqooyin kala duwan kuwaasi oo uu ka dhaxlay muddadii uu ku guda jiray waayo aragnimo ku dhisan xeelad iyo xadaarad shaqooyinkaasi uu Mustafa soo qabtay waxa aynu ka xusi karnaa qaar ka mid ah shirkadaha ganacsi ee ugu waaweyn dalka oo uu la shaqeeyay hay'ado kala duwan qaar ka mid ah jaamacadaha dalka iyo waliba shaqada dawladda oo uu muddo ku soo jiray Mustafa Cismaan
cismaan magaalo waxa uu ka mid yahay dhalinyarada dalka hadda u diyaarka ama u sharaxan jagada golayaasha deegaanka dalka gaar ahaan magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil iyadoo uu hankiisa siyaasadeed gaarsiisan yahay ilaa heer maayer si uu bulshada deegaankaas ula dareen noqdo uguna hagar baxo hankii qaranka mustafa cismaan magaalo waxa uu ka mid yahay dhalinyarada tagtay dabadaha ee jecel waxyaabaha uu ku soo arko in laga hirgelin karo waddanka waa hal abuure ganacsi oo leh curin iyo carin maskaxeed waxaana ku faa'iiday fikradaha uu hore u curiyey bulsho badan hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena hayaanka tubtiisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqday midhaha hoobanta hawrtay ilaaca cirka ku horay ilaaca cirka ku horay